cadarka Soomaali kasta ciddii hadashaba in xadhig lala raadsanayo waxa u dambeysay waxa weeye in xildhibaanadii maxaan ku dhahdaa shacabka ay soo doorteen in ciddii hadashay su'aal ka keentay sida ay wax u socdaan in suuqa dhexbartankiisa lagu garaacay waxaad la socotaa in activistayaashii iyo dadkii dowladdii hore ay xabsiga u dhigtay fikirkooda inay soo dhiibtaan in maanta ay magaalada jigjiga ku rafaadsan yihiin oo la raadsanayo qaarkood waxaana loo sheegay in maxaan ku dhahdaa ay bajaaji dhex seexdaan waddooyinka ay seexdaan oo ay magaalada ayna ka bixi karin si xorana ayna guryahooda ugu noolaan karin marka ku tumashada sharcigu taasaa kow ka ah wasiir musuq maasuq baad sidoo kale soo hadal qaaday dhowr jeer horena dowladda waa la weydiiyey inuu musuq maasuq jiro balse wax cad maysan sheegin dowladda wasiirna waa tahay xukuumaddiina ku jira oo golihii wasiirrada dhex fadhiisto nidaamkii ka mid ah musuqa jireed farta lagu fiiqi karood caddayn karta muxuu yahay walaal waxa weeye musuq baahsan baa deegaanka ka jira degmooyinka gobollada iyo heer deegaanba in badanna waxaan isku daynaa in maxaan ku dhahdaa si hoose loo baadho oo wixii dhibaatay jirtana la saxo laakiin taasi ma ayna dhicin marka ma aha maxaan ku dhahdaa wax dee la qarin kara ma aha waxaa la musuqay waxa weeye shaqo abuurka lacagihii loogu talagalay dhalinyarada in si cadaalada shaqo abuur loogu sameeyo qaydinkaa lagu qaybsadaa sidii raashinkaa loo qaybiyaa taasina wax marag madoona maaha yaa qaybsadaa wasiir qof caadi oo iska hadlaya ma tihid golihii wasiirradaad ku jirtaa wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimiladaad tahay farta ku fiiq hebel iyo hebel ama meel heble ama hay-ad heble ma odhan kartaa yaa lacagahaas dhacaa oo musuqa tusaale fudud baan ku siinayaa walaal maamulka magaalada jigjiga haddii tusaale aan usoo qaadanno cidda ku magacaaban in shaqo abuur loo sameeyey iyo shaqo abuurka rasmiga ee jiray aad buu kala duwan yahay ballantaan qaadnay waxay ahayd in wixii dhibaatadii hore ee jirtay aanu saxno rabitaankii shacabka ee ahaa maxaan ku dhahdaa inay dadku si xor ah u noolaadaan fikirkoodana u dhiibtaan inaanu si rasmiya u hirgelinno nidaamkaasina inaan difaacno ballantaasay ahayd tii hadda waxaad mooddaa in shakhsiyaad gaari ay rabaan inay leexiyaan axmed deeq qabyaalad iyo cadaalad darraad soo hadal qaade waxaagu ma tuhum baa mise wax cadoo la taaban karaad sheegi kartaa maadaama wasiirna aad ka tahay dowlad deegaankii walaal tuhun maaha caddaymo cad baa jira nidaamku qaabka uu hadda wax loo wadaay waa nidaamka magacaabistu qabyaalad cad baa ka dhex muuqata nidaamka tallaabo looga qaadanayaa maxaan ku dhahdaa xubnaha dowladda ku jira ee magacaabistii wax cad maaha waxaan ognahay in xubnaha laga tallaabo qaatay nidaamka sharciga iyo nidaamkii dastuuriga aan loo marin nidaamka loo magacaabayo laftigeeda inay qabyaalad cadi ay ka muuqata ayaa muuqata nidaamka nooca loo difaacayaana waa qaab jufaysan oo maxaan ku dhahdaa qabyaalad ku salaysan wasiir dowladda waad ka tirsan tahay oo bannaanka kama taagnid ma u sheegtay golaha wasiirrada shirar bay galaan ma ka sheegtay madaxweynihii ma u sheegtay ku-xigeenkiisa ma u sheegtay waxaan aad tilmaamaysa farta ma ku fiiqda oo ma tiri ruuxan waxa laga qabto mise waxa waa iska eed cidlo ah in badan baanu ka hadalnay walaal si hoose waan kuu sheegay in badan baanu ka hadalnay aniga keliyata maaha ragga igu horreeyey oo ka hadlay baa jira dhibaatada jirtana rag badan oo farta ku fiiqay baa jira adigu miyaadan cabsanaynin maadaama wasiir dowladdii ka tirsan aad tahay waxana aad qufayso oo eedahana aad jeedinayso culculus in lagaa tallaaba qaado ama xilkaaga aad ku weydo eedahan aad sheegayso miyaadan ka baqaynin axmed deeqow xilka qaadistu cabsi maaha hadda ka hor anu madaxweyne ku-xigeen baan deegaanka ka soo maray dhibaatooyinkii ka jirayna saacad baan uga hadlay systemkii markaa salugsanaynna waan ka baxay xisbigana waan ka tirsanahay golo dhexe oo xisbigaan ahay xilka qaadis in xilka laga qaado